gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya ay si bareera yani banaanka ay soo istaagto wax aynaan dhaqan u lahayn oo aynaan diin u lahayn oo aan shariicadeena waafaqsanayn annaga xataa baasaboorradeena ay gender noogu qoraan iyaguna sex ku qortaan waxay ahayd dadka sidaa yeelaya inaan shariicada ilaahay ku xukumo waxaase nasiib darro ah in dadkii madaxda u ahaa ay ka shaqeeyaan inay dadkii iskhilaafaan oo isnacaan in loo soo waarido waxaysan dhaqan iyo diin u lahayn sida haddaba aan arkaynay oo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya ay si bareera yani banaanka ay soo istaagto wax aynaan dhaqan u lahayn oo aynaan diin u lahayn oo aan shariicadeena waafaqsanayn oo gaalada laftigeeda inoo sheegaysa beenta aysan manfacaadsan maxaa yeelay wadamada adduunka ugu kufsiga badan fiirsha annaga ma ogta kufsiga waa dhaca laakiin annaga kufsiga waxyaabo badan naga dhiciyaa jira waa mare waxa naga dhicinaya waasic diini ah in badan oo malaayiina ayaan alla ka baq daraadiis u samaynay in badan oo waxaa jira alla ka baqooda uusan qaangaar ahayn laakiin dhaqanka iyo bulshada iyo sharafta iyo gobonnimada ay ku dhex barbaareen ayaa u diidaya waxa xun inay ku dhaqaaqaan laakiin gaalada waasic diiniya ma jiro hadduu jirana waa number yar waa laga yaabaa gaalada dad diimahooda haystaa inay jiraan laakiin waa number aad iyo aad u yar qaanuunkaasay ku kala socdaan qaanuunkaas ayay ku kala socdaan qaanuunka maadaama ay ku kala socdaan waxba ma ay manfacaadsan tobanka wadano adduunka ugu kufsiga badan inagu kuma jirno 20ka ugu kufsiga badan kuma jirno 30ka ugu kufsiga badan kuma jirno 40ka ugu kufsiga badan kuma jirno inagu waa sax dambigii dhulkeena uu ka dhacaa halka mushkilo ina haysataa waxa weeye waxay ahayd dadka sidaa yeelaya inaan shariicada ilaahay ku xukumo oo sharciga ilaahay la mariyo laakiin ceelteena waxay noqotay xeer jajab ha reer waaba gabar reer hebel basaal la yeelay maxaa lagaga xaal ma ujeeda waa ceeb waa dhaqan xun waa inaan gabadha lagu galdiin waa in ninka ku galdaa oo xoog kaga qaada maxaan ku leeyahay jirkeeda waa in shariicada islaamku siday qabto la mariyo anaga dhaqan gaal uma baahni laakiin in annaga xataa baasaboorradeena ay gender noogu qoraan iyaguna sex ku qortaan ya iyagu kuma qoran laakiin annaga waa noogu qorayaan maxaa yeele dad gunaan nahay oo annaga baasaboorka ma samaysan karno soo ma jeedin maxaa yeele waa samaysan karnaaye gunnimadaan qaayibne oo waa maxay ilaa baasaboorka lagu sheegayo waxaa maamulo waa software-kana intaasoo engineer baan haysanaa oo software-rada samayn kara haddaynaan samayn karinna waxaynu karaysan karnaa kuwa software-rada sameeya haddeerba hindi baa samaysay iyo waraaqa lagu daabacayo waaba intaa oo keliya intii baa waxaa la leeyahay dawlad heblaaya ina ka bixisa dawladda Norway baa baasaboorkeena maalgelisay dawladda Norway say rabto inaan yeelno waay marka soo ma jeed dawladaha marka adduunka ugu kufsiga badan 10 dawladood 2022 xisaa la soo saaray kow waxa ah South Africa wadan muslima ma laba waxa ah Botswana wadan muslima ma waa Afrikaan labaduba Lesotho oo Afrika iyada baa ku xigta soo ma jeedin يعني وحوي برمودا كحكتا إسبيدن با كحكتا هل دولة أو مسلمة كم جرتو محايا لي دتك مسلم كأوازع ديني وكعلنا يجر لكن حيرك هذا اللي ذي كفسي كليه كما هاللي وحكاها اللي واحد جنسك اللي يراده أما وحكاها اللي واحد جندرك اللي يراده جندرك وحوي أدو ناقنا ماهد ننا ماهد ودوخاga هدارت نبا سودينيسا هدارت الناق با اسو رغيسا هدارت اللبيب با اسكا دغيسا هدارت midna iska ba dhigi maysid mawjeeda waxaas anaga wax diinteena ogashay maaha wax dhaqankeena ogol yahay maaha waxa alfaada foosha xun oo meesha ku qoran mawjeeda in anaga la inoo keena maaha